waxay ii sheegeen rag xoogaali qaarkood inay wataan fargashi ay ugu talagaleen jinka inay ku soo xaadiriyaan dumarkii ajnabiga ahaa fariyaradooda qabanahaya oo ku dhagahaya oo taabanaya. waa saaxiriintii oo weji culummo yeeshay kuwaas oo dhakrid ku bilaabay gabdhaha Soomaaliyeed. haddaba ninkan waxa lagu magacaabaa Sheekh Rusheeye. waa sanadkii saddexaad uu gabdha aad u qurux badan oo ay da'doodu ka yar tahay 20 sano sawiradooda baraha bulshada ku soo baahinayo, kaas oo ku shaacinaya in uu guursaday. maxaad ka og tahay halka ay ku dambeeyaan 6 bilood kadib? sidoo kale maxaad kala socotaa waxyaabaha uu qalbigooda ku qufulay faraantiga ugu xiran fartiisa midig, kaas oo ay ku duugan tahay sirta xoogan? xog iyo macluumaad ku ayaan kula wadaagi doonaa culummo Soomaaliyeed oo arrintan ka hadashay. haddaba daawadayaal, si arrintan looga digtoonaado muuqaalkan ummad badan oo Soomaaliyeed u gaaro, ha ilaabin inaad leegarayso, sidoo kale aad nagu soo biirto aad ka mid noqoto asxaabteena adigoo channelka subscribe dhahanaya. haddaba daawadayaal, guud ahaan baraha bulshada way Soomaalidu isticmaasho waxa maanta ilaa iyo xalay qabsaday sawirada sheekan oo lagu magacaabo Rusheeye, kaas oo soo bandhigay in dhawaan uu guursaday gabar. sawiradan oo ay ka muuqdaan hilow iyo jacayl aad u qurux badan, marka uu qof walba kor ka arkana uu sawiranayo wax aad u qurux badan, ayaa waxa ku duugan sir aad u culus maadaama sheekani jacaylkan uu u sameeyo si maalinle ah. haddaba arrintan maxay tahay sirta ka dambayso? sababta uu arrimahan ugu suurta galeen isagoo da'daasi jiro? sidee ayuu u helaa gabdhahan aadka u quruxda badan oo ay da'doodu ka yar tahay 20 sano? maxaad ka og tahay waxyaabaha uu qalbigooda ku qufulo oo uu ka mid yahay sixirku? haddaba arrintan waxaa faahfaahinaya sheekh ka mid ah culimada Soomaalida oo lagu magacaabo Sheekh Maxamed Macalin. bal wax yar aynu isla daawano. dad baa xarumo kireystay, boorar bay ku qorteen, quraansaar bay ku magacaabeen, waxa ay dawooyin ku sheegayaan oo dadka cabsiinayaan bay keensadeen, foostooyin waaweyn bay biyo ku shubteen, ay tahliil ku magacaabayaan. hooyooyinkii iyo dumarkii baa fayl u soo gelahaya, gabar bay soo kaxaynayaan xanuunsan, waxay leeyihiin quraansaarka ha la geeyo. markay keento oo gabadhii la keeno ayaa mikrofoonno waaweyn lagu daarayaa. markaasaa waxaa la leeyahay adiguna waa sixran tahay, ayaduna way sixran tahay, qofka wada waa sixran yahay, adiga laftigaagaaba jiran, kulligiin baaba jiran, kulligiin baa laydin quraan saaraya. meeshaas waxaa ka socda oo waxa weeyaan fasaadka ah oo aan arkayna oo magaalada Muqdisho aad ugu faafay, wax caadiya ma aha. meeshaas waxa weeyaan quraan akhris ma yaalo, cilaaj loo aadayaana ma jiro. dad business iyo ganacsi u furtay, ummadda xoolahooda raba inay ku qaataan bilbaatil, biyo ku rushaynahaya. waxay akhrinahayaan maanta oo dhan haddaad dhegaysatid wax qur'aan ah ay ku yar yihiin, sixir iyo wax la mida ay ku hayaan. qur'aankii googoynaya oo ku talaacubaya oo ku ciyaaraya. dumarkii ajnabiga ahaa fariyaradooda qabanahaya oo ku dhagahaya oo taabanaya. qayladhaan iyo buuq waxa weeyaan iyo sawaxan ka dhacahaya. qaar ka mida waxaan arkay oo fara badan markay wax akhrinahayaan dumarkii oo dhan ayaa wada ilmaynaya oo safka ku jiray oo wada ooyahaya oo isruxahaya. kulligood waxa weeyaan qaar badan oo fiyow oo yimid markay meesha yimaadaan jinkii iyo shayaadiin baa lagu sii daynaya. gabdhahan lagu soo xeegeliyay quraan akhriska ee jirkooda la taataabanaya kuma eka arrintaas oo kaliya, hase yeeshee waxay tahay xogta iyo sirta ka dambaysa in gabdhahani halkaas imaadaan. waxa ay tahay faraantiga ay sirta weyn ku dugan tahay ee sheekan ugu xiran gacanta. bal mar kale aynu isla daawano sheekan oo sharaxaya. waxay ii sheegeen rag xoogaali qaarkood inay wataan fargashi ay ugu talagaleen jinka inay ku soo xaadiriyaan, oo marka waxa weeyaan qof dadkaasi ay yimaadaan fargashigaas jinku uu ku soo xaadiro oo dadkan ay ku sii daynayaan. markaasay caamadii waxay moodayaan oo leeyihiin siduu dumarka dhan uga ilmaysiiyey, siduu uga oohiyey soo arki maysid, waa nin jinku uu ka baqa weeye, waa been iyo khuraafaad weeye. yaan lacag lagaaga qaadan, waqtina ha ku luminin. hooyada adigu qur-aanka ku akhri, adigu qur-aanka isku akhri, gabadhaada adigu qur-aan saar, adigu adkaarta akhriso, ilaahay ka magan gal. meeshaas waxa weeyaan fasaadka yaalla caadi maaha. waxay raggaasi in badan ku caanbaxeen haweenka ajaanibta ah jirkooda waxa weeyaan inay taabtaan oo waxa weeyaan ay faryarada ku dhagahayaan, qaar ka mida ay qoorta qabanahayaan, qaar ka mida ay dharbaaxahayaan, qaar ka mida gacmaha ay qabanahayaan, sida ay rabaan waxa weeyaan iyo meeshay rabaan iyo xilligay rabaan ay taabanayaan.
waxaa ka dhaca goobahaas kashful cawra gabadhi intay rafato oo jin lagu sii daayo lagu diro in cawradeedii ay faydanto ninka daawanayo wax ku akrinaya uu yahay nin ajnabi ka ah waxa noocaasi waxa weeye cilaaj ma aha dhaqaalaha lagu bixinayaana xaaraam weeye saxna ma aha dariiqada iyada in lagu raadiyo caafimaad kuwa nuucaa ku shaqaysanayaan oo magaalada ku soo batay oo farihii ka batay waxaan leenahay ilaahay ka baqa dadka beentaa ah u sheegaysaan ilaahay oga baqa risqi xalaala meel kale ka raadsada dadka muslimiinta ah oo xanuunsan oo idiin imaanahaya ha lugoynina qaar ka mida waxay qorahayaan daawo dhireed ay qorayaan baa jirta oo ay leeyihiin dawadan iyo dawadan isticmaal lacag aad u fara badan buu ka siinahayaa dawadaasi waxaa laga yaabaa qofkaasi khatar noloshiisa khatar gelisa inay ku keento waayo wax la yaqaano oo la tajrubeeyey oo aqoon loo leeyahay ma aha qaar ka midii biyahan ay ku akrinayaan waxaa laga yaabaa biyaha laftigooda waxa lagu akhriyay sixir inuu yahay baa dhici karta oo waxa weeyaan wax lagu kalsoon yahay ma aha dadkii waxaa arkaysaa habeen iyo maalin waa kusii socdaan qaar makarafoonno waaweyn markay ku shidaan oo qofka dhaguhu ay xanuunaan oo uu gacmaha saa yidhaahdo ayay leeyihiin jin buu qabaa waa sixro yahay qur-aanku diidaya waa lagu gubahayaa markaasaa lagu garaacayaa dhegihiina waxa weeyaan qofkan dhagaha ayaa xanuunay codkaa weyn oo laga dulshida ayuu dhibsada ma ahane jin iyo balaayo midna ma qabo markaasaa qofkii la garaacaya oo la tumaya war waxba ma xanuunsanin war dhibaata ma qabo markaasaa le tuma wuxuu diidan yahay qur-aanku diidan yahay waa jine walaalayaal waxa noocaasoo waddankeena ku faafay oo magaalada ku faafay oo culummadu ay ka digeen in badan gobollada sidoo kale aada looga digo culummo badan ay ka hadleen waxaan ku biirinahayaa codkii culummada mar labaad aan leeyahay qur-aanka idinku isku daweeya haddaba xogahan iyo macluumaadkan ayaa waxa ay yihiin kuwo ka qarsan dhammaan bulshada Soomaalida guud ahaan magaalooyinka Muqdisho waxaa ku soo batay culummo sidan oo kala sameynaya waxa ay degayaan goob aad u weyn kadibna waxa ay ku xiranayaan makroofano aad u waaweyn dadka ay meel barxada isugu keenayaan waxay haystaan waxyaabo dadku markay imaadaan jin ku kicinaya qof kasta waa uu isruuxaya miirka iyo maskaxda ayaa ka tagaya qof walbana xaaladii caadiga ahayd waa uu ka baxaya haddaba raggan ayaa waxa ay degaan xeelado kala duwan qaarkood gabdhaha waxa ay ku guursadaan inta ay dhahaan waan daweynaynaa kadib markii ay daweeyaan sida iyagu ay sheegayaan kadibna ay dhahaan hanagula abaal mariyo oo inagu aan guursano sida fudud ayaana gabdhaheennii Soomaaliyeed ee boqolka laga bixi jiray lagu helaa sidoo kale nimankan ayaa waxa ay yihiin hantiilayaal lacag aad u fara badan haysta iyagoo lacag ka sameeya dadkan ay daweynayaan waxaana maalintii celcelis ahaan soo gasho lacag u dhaxayda 10,000 ilaa 15,000 oo dollarka Mareykanka ah waxayna ku fushadaan waxyaabo badan oo ay rabaan haddaba suuqan lagu abuuranayo quraanka kariimka ah waxaan leeyahay waa in culimada Soomaaliyeed ee waaweyn ay ka soo hadlaan arrintan ay ka dhiidiyaan haddaba daawadayaal warbixintii aan ka diyaariyay halkan ayaan ku soo koobayaa inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo mahadsanidin